inaan halkaan kasoo jeediyo sheeko aan hadda kahor ku sameeyey saaxiibkeyga Cali Baashi oo haatan ku sugan dalka South Africa oo anigoo ah Dalac Daarshood. aniga Cali horta muddo badan aan saaxiibo ku xamar. isagu wuxuu lahaa dukaan aad u weyn, sidoo kalena wuxuu ku lahaa farmashiye xaafadda Sinai magaalada Muqdisho. aniguna waxaan degnaa Manabolio. saasay tahayna waxaan ahayn laba saaxiibo oo markasta iska warhaya, isla socda, isla qaraabta. waa usoo sheeka doona jiray, laakiin saaxiibkii Cali Baashi hal ceeb ayuu leeyahay. waa nin aad u gacan adag oo baqiil ah oo aanan rag u gacan furnayn, laakiin wuxuu u jaban yahay dhanka gabdhaha. gabar hadduu arko uu kala daadanaa, isaga dhan waxaa moodaaba in la yidhi isfurfur, markaasuu wixii lacag ahay dhan uu qufaa. marka ilaamkiis marka saaxiibkeyga maadaama uu gacan adag yahay waxban ii qoorin, waxaan ku fikiray marka aqal inaan lacag uga cuno. waagaasna xilligaasi marka aan waxaa jiri jira waxa la ciyaari jira waxa la yidhahdo glus, ciyaar glus haddii aad ahaan jirteen. gluska marka waxaa jiri jirta meelo badan oo laga soo bilileqeysto ama meelo badan oo baqaara oo dowladii hore ee Soomaaliya ay ka guurtay, dowladii Maxamed Siyaad Barre naxariiste. marka waxa ii yaala marka guriga bacooyin badan oo glusi ah. marka way iska yaalin. maalina waxaan ku fikiri jiray marka iska tuur, laakiin waxa igu dhalatay aqli ah in aan saaxiibkii Cali Baashi ku qiyaano. bas maalma kamid ah Cali Baashi waxaan ku yiri saaxiibo bacooshinkan oo gulusyada ina ii iibisa rabaa oo dukaankaaga ay dhigto oo qof hadduu rabiyo iga iibiso. bas Cali Baashi wuxuu dhahay war niyo Dalac waa waalantahay saacan qof gulus rabta ma lahan 2000 la sii marooya. marka iga dhaaf. bas waxaan ku yiri marka niyo waa iska taqaanaa bini aadan qof iska soo baahan doono laga yaabee marka inaad aanoo hesho. marka waxaan dhahay haddii aad noo iibiso waa kaas, haddii noo iibiso wanaagsan maalmo ka bacdan guluska ka celina. saasay tahana guriga waxa is yaal dhowr baco kala is yaal gulusi. bas Cali Baashi wuxuu yiri okay hay iska taalo, haddii arko qof maxaa la dhahay oo rabto kaagada. ilaamkiis markii aan bacda dukaankiisa soo dhigay waxaan imaaday meel yar oo dukaankiisa dhow aan ku gambaday. cunug yar waxaan ku yiri adeero ninka dukaankaas kale deena ugu leeyahay, marka waxa ka codsan lahay 5,000 shilin Soomaaliga qaad ee ku dhac adeer gulusiga. bas yarkii uu baxay cunug yariiska ahay wuxuu u tagay Cali Baashi dukaankiisa adeer gulusi ma gadaha waa haya gulusi uu ka soo gatay. bas yarkii wuxuu ii keenay marka gulusi haddana laab kale aan galay. qof kale waxaan ku yiri walaalow ninkaas dukaanka leh oo Cali Baashi la yiraahdo wuxuu igu leeyahay lacag badan, marka haddii aan dhaho wax aan ka iibsan bilaa horta lacagta hore bixi. marka walaalow isaacid. qof kale oo isaacid dukaankii uu aaday. marka haddana waxa la ii soo iibiyay isla gulusyadii Cali Baashi waxa loo geenay lacagteeda. marka bas adiga marka maalintii oo dhan buu luuqan ku gabada qofa u diraa, waxa ana lacagta bixiyo waxaan iraahdaa ii soo gada. bas saaxiibkii Cali Baashi markuu arkay gulusyadu in ay kala socdaan oo gadmanay mali ooga marka qofka oo dadka soo diraa inuu ani yahay, isaga wuxuu qaatay marka gulusyadu wax loo baahan yahay. marka maalinta markuu ii wuxuu yiri niyo kaalaniyo horta niyo sheekan ku haya adiga hadda gulusyadaan lacag fiican ku dhufsanaysid, marka kawan hadda hal mar inta gulus haysid aan kala wareeg camal. marka waxa ku yiri warniyo walahi hadda igla wareegaysid dhibaato kuma qabe bal laakiin ma ani idiisa aan iska ganacsan ma wuxuu yiri saaxiibo gulusyada maanta kaliya inta qof ATM waa yaabaysa muu milajin dhaa marka gulus insaan loo rabo. marka gulusyadaan ana kala wareegay. marka waxaan ku yiri okay maadaama saaxiibkay tahay igala wareeg waa ku faraxsanahay. bas saaxiibkii Cali Baashi wuxuu soo dirsaday gaari gacan, markaasuu wixii gulusi gurigeyga oo la dhan uu soo qaatay. bas dukaankiisa keensaday. bas dukaanka markuu keensaday maalintaas ilaa hadda gulusyada cid ka gadata ma lahan. bas maalintii ku xigtay wuxuu arkay marka wiilkii oo hadda kor ka soo doornay gulusyadii. markaas wuxuu dhahay wariya kaale shalay adaa gulusi raadinay maanta maxaa ii soo doonayso gulusyadii. markaas wuxuu adeer ani gulusi mareemin nin laabkan ku jiro oo ii sheeg oo wuxuu yiri dukaankaas gulusyada iga soo gad ma ani mareemin camal ninka soo yaal camal koosaas saas camal waa. wuxuu dhahay Allah Dalac oo iqiyaano dhahay Allah hadda ogaalaha yiri in maanta dhan dadka gulusyada gadana inuu ii soo dirdiray والله كم قلت لنا لكن أقل أقوم رده اللي دكان كيسة وحيا لجلسيدي ومركنين سحابك بقيل وحمي يقوريو أنا وحمي يسيجرين يا أنا مركب دم حقو أنسدنا أقل أقل كمرة